waxaad u camaalaqdaa carrada waad leedahay cuudkaaga wixii ka go'aa ku biiri dalku cishee qofkii ka canaatamee ka sii cagajiidayo sharcigu cid ma dhaafayee ma waatin cashuurta bixi cashuurta oo la bixiyaa waa maalgashiga mustaqbalka qarankaaga cashuurta oo la bixiyaa waa lagu dhisaa wadooyinka cashuurta oo aynu bixino waxaynu ku dhisanaa iskuullada cashuurta oo aynu bixinaa waxaynu ku dhisanaa guryaha aynu ku wada noolahay cashuurta aynu bixinaa waxaynu ku dhisnaa amniga qarankeenu ku dhisnaa oo ciidamadeenna ka mushaahar qaata macallimiinteenna ka mushaahar qaata dhammaan shaqaalaha dowladda ka mushaahar qaata cashuurta aynu bixinaa waxay dhistaa oo ay kobcisaa oo ay ururisaa mustaqbalkeena oo dhan waxaa generationka dambe iyo jiilasha dambe oo soo socdaa ku dhisma cashuurta ay aabbayaashood ay ku mushaahar qaadanayaan aabbayaashood ay ku shaqaynayaan awowayaashood ay uga tegeen baynana ubadkeena iyo jiilasha dambe ee soo socda aynu uga tegaynaa waxaynu different kaga nahay Soomaaliya wax kale ma aha waa cashuurta aynu afariska sanadood inagu bixinaynay tii aan cidina caawinayn tii adduunyo kale aan noo soo waxayna siinayn baynu cashuurteena ciidamadeena ku dhisanay baynu cashuurteena iskuuladeena ku dhisanay baynu cashuurteena wadooyinkeena ku dhisanay baynu cashuurteena wadana hubkeena iyo ciidamadeena iyo qalabkeena wada haysano iyo badeena iyo dekedaheena baa aynu ku wada dhisnay marka waxaynu ugu wadaajibaa qof kasta oo maanta dhageysanaya waxa aan jeclaan lahaa inaan ugu baaqo in ay cashuurta bixiyaan cashuurtuna mid meel ka tigaysan maahay waa mid ku soo noqonaysa ta aad maanta bixiso ayaa haddaad shirkad samaysato aad ku dhisaysaa wadooyinka haddii aad maanta cashuurta bixiso guryaha shirkadda aad leedahay baa dhisaysaa haddii aad maanta cashuurta bixiso ciidamadu agabkay u baahan yihiin dhan adigaa lagu dhiibaya ku soo iibinaya maaha cashuur ay cid qaadanayso maaha cashuur meel kala tegaysa maaha cashuur dal kala tegaysa cashuurtaas baynu dalkan ku dhisanay oo magaalada ku dhisanay oo waddanka ku dhisanay oo qaran ku dhisanay isla iyadii un baynu wareejinay Rabbi subxaanahu wa ta'aala idinkii maanta aynu aqoonsi helayna waxaan qabaa inay nooga sii fiicnaan doonto oo aynu meel badan cashuurta inoo gelin waxaan idinku codsanayaa walaalayaal meel kastoo aad joogtaanba inaad u fiirsataan oo ka fiirsataan cashuur diidka inaad ka fiirsataan oo u fiirsataan cashuur ku qariya ee maalqabeennada ee cashuurta ka qariya dawladda waxaan ku waajibinaynaa inay cashuurta bixiyaan ee aanay ka qarin had iyo jeer dadka maatida dadka caruurta leh dadka dhibaataysan dadka wadatada fadhiya cashuurta kaga fiican dadka maalqabeennada wax haysta waxaan ku boorinayaa maalqabeennada waaweyn inay cashuurta waajibaadka lagu leeyahay ee awoodaan inay bixiyaan wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu marka cashuurta la bixinayo ama muwaadinku bixinayo waxa uu ka qayb qaadanayaa dhismaha dalkiisa dadkiisa iyo horumarkiisa oo isaga noloshiisa ku soo noqonaya cashuurtu waa wax yar oo la bixiyo waxaanay dhistaa wax weyn oo la wada leeyahay in yarood bixisabaa wadooyin dhista in yarood bixisabaa iskuulla dhista oo mustaqbal caruura dhista in yarood bixisabaa nolol qof badbaadisa oo adeeg caafimaad oo uu ku badbaado u diyaarisa in yarood bixiso baa amnigaaga sugta qofina in yar oo uu bixiyo waxaasi kagama filaadeen dowladnimadu waa waxaasoo la isku geegeeyey oo wax weyn noqday oo amni guud noqday oo caafimaad guud noqday oo sidoo kale noqday wax kasta oo adeeg caafimaad ama adeeg bulsho dadku ay u baahan yihiin cashuur bixintu sideedaba kaliya ma aha uun waajibaad ama waajib saaran waa se mas-uuliyad muwaadinimo sideedaba morality ahaan bay waajib tahayba inaad dalkaaga wax ku darsato muhiimadda ugu weynana waxa weeyaan waddan soo koraya baynu nahay su'aalo iyo doodabaa ka imaada dadku mararka qaarkood hadallay soo celiyaan waxay dhahdaan siday noogu soo noqonaysaa waxaasoo dhan in la saxa way tahay laakiin ka muwaadin ahaan adiga waxa ku yaalla qofka koobaad ee wax qaldaya inaanad noqon horta haddaanad bixin maxaaba laga hadli maxaa wax la qaban maxaa musuq laga doodi maxaa musuq la sixiba tallaabada koobaad qofka qaloocinaya adigu ha noqonin waajibka ku saaran ka soo baxa kaa haddaad saxdo adaaba sixi kara oo muwaadina oo awoodeedii leh oo ka doodi kara inta hadhay marka waxa weeyaan si aynu dal weyn oo aynu ku faano u dhisno magaalooyin aynu ku faano u dhisno horumar aynu ku faano u dhisno wax yar oo adiga aan culays kugu ahayn qarankaaga ku darso intaasoo afkii kale suugaanta haddii aan ku sheegana caruur aflaxdaad rabtaa culumna baraad rabtaa wadooyin caqiibo loo cusaybana waad rabtaa
haddii cudur iyo xanuun cidka ay kaa soo ritaan adeegyada caafimaad oo caafiyaad rabtaa intaad ku canaanan layd cid kale hawl kaa qabiyaa adaa ceebteeda le muwaadin cashuurta si aan cidna kuu dulmiyin awood ka caabidiyo damaanad cad baad rabtaa cadaaladna waad rabtaa inaanad cabsoon mar qudha dalkana jira ciidan qaran cadaawana kaaga filan cududlana waad rabtaa intaad ku canaanan layd cid kale hawl kaa qabiyaa adaa ceebteeda leh muwaadin cashuurta bixi waxaad u camaalaqdaa carrada waad leedahay cuudkaaga wixii ka go'a ku biiri dalku cishee qofkii ka canaatamee kasii cagajiidayo sharcigu cid ma dhaafayee muwaadin cashuurta bixi